bismillaah asalaamu calaykum kusoo dhawow taxanaheeni cusbaa ee caqabadaha guusha ama waxaa qof u diidi karaa inuu hantahankiisa amba uu rumeeyo riyadiisa. caqabada koowaad ee muuqaalkan kusoo qaadanayna waxay noqon doontaa caqabada ah qofku inaanu garanayn waxa uu doonayo nolosha. waxaa jira qof aan garanayn wuxuu doonayo. doonistu way noocyo badan tahay, laakiin doonistan aan u danlayna waa midda guusha la xidhiidha. aan soo qaadana labo arrimood oo doonistaas ama rabitaankaas oo guusha la xidhiidha. ta koobaad waxa weeyaan doonis marxaliya oo tiro badan oo nolosha mar walba ay wax inugu darayeen. mar waxaa kugu daran iskuul dhamayso, mar waxaad doonaysaa ay kugu daran inaad shaqo hesho, mar waxaa kugu daran inaad guursato, mar waxaa kugu daran inaad xirfadan ama luuqadan barato, mar inaad buug qorto, marba waxbaa kugu daran oo wax dhammaanaya maaha, wax fara badan. waana doonis marxali ah. doonista labaad waa tan aan u danlaynahay ee caqabada ah haddii aanad lahayn. waana doonis gaar ah oo dadku ku kala duwan yihiin. magac kale haddaan siinana amba aan siiyana waa himilada nolosha. waa himilada ay haddii dal uu samaysto wadamada inta kale kaga horumari karo. shirkad ama ganacsiga samaysta himilada cad leh uu shirkadaha kale ku dhaafi karo. shaqsiga himilo cad noloshiisu leedahayna uu sidoo kale kaga tegayo inta kale haddii uu leeyahay himilo cad nolosha oo uu himiladaas u halgamayo. haddii aan taabanay oon magacawnay caqabada waxay tahay oo ah qofku inaanu lahayn doonista gaarka ee lagu kala duwayo oo ah himilada nolosha, xalku muxuu yahay? xalku waxa weeyaan dhowr tallaabay sheegi doonaa qofka tahay inuu qaado suu u dejisto u sugo himiladaas. tallaabada koobaad waxa weeyaan inaad taxdo humuumtaadii iyo hamiyadaadii guud ee weligaaba kaa guuxaya dhan walba nolosha wixii aad xasuusato 10, 20, 30, 40 intaad gaarsiin karto. kadibna aad kala dhex baxdo saddexda ugu mudan, kadibna aad midka ugu sii mudan kala dhex baxdo. maxaad ku dooranaysaa markaa saddexdaas iyo midka ugu sii mudan? 4 arrimood ayaad ku salaynaysaa. ta koobaad keebaad ugu jeceshay oo haddii xataa suurtagal ay tahay inaanad biil ka warwaraynin aad bilaa mushahar ugu howlanaa kartaa ood ugu shaqay kartaa bilaa mushahar. 2 keebaa kugu suurtagalsan fudayd ahaan, waaqic ahaan, xaalad ahaan. 3 keebaa ugu waxtar badan dadka ummadda haddii oo loo aayi karaya. 4 sharciyankee ugu mudan marka danka diinta eegto iyo marka dalka joogta sharcigiisa inaanu dhib kaaga iman inaad eegtaba. 4 arrimood markaad u eegto hadda waa kuu fudude markaa saddexdii midaad kasii dooranayso. qasab 4 ama waxaad dooratay 4 kama midaysnaan karaan. xataa haddii 4 yeeshaan mid walba waxaad usii eegaysaa 0 to 7 ayaad ku cabiraysaa xaalad kasta oo jacaylka iyo suurtagalnimada iyo sharciyan intaba waxaad u eegaysaa markaa cabir baad sii siinaysaa markaa kuwa ugu cabirka sarreeya meel walbood kala dooranaysa oo fududa inaad markaa ka dhex doorato midda ugu mudan. tallaabada xigta waxa weeyaan inaad odhaah ku qeexdo kooban si xasuusna ay kugu fudato mar walba xasuusan karto una sawiran kartid oo aad u arki karto waxaas malaawaal ahaan iyo imagination ahaan. tusaale soo qaadanaa markaas adigu buuxbuuxsa meelaha bannaan. sidan aad u dhigi kartaa himilada. waxaan doonayaa inaan u istaago ama waxay himiladaydu tahay inaan u istaago arrinka noocaasa anoo raba inaan qaato doorkaas higsanayana inaan gaadho heerkaas. 3 meelood buuxinaysaa. arrinkaad u istaagaysaa wuxuu yahay, doorkaad qaadanaysaa wuxuu yahay, iyo heerkaad doonaysaa inaad higsato. marka way fududahay marka inaad 2-3 leenaad kusoo koobto himiladaada nolosha. tallaabada u dambaysa waxa weeyaan inaad ahdaaftii iyo qorshayaasha aad dejisaad ku gaari lahayd kadibna aad ficilkii ku ladho oo aad joogtayso. intaas wada raaci markaa waa tallaabada u dambaysa. ahdaaftii iyo qorshihii, ficilkii iyo joogteen. midna ogsoonow faa'iidooyin badan baa ku jira oo inaan koobi karin qofku inuu himilada noloshiisa uu himiladaas qeexo
sugo himilada nolosha oo waa caqabadii haddaanu lahayna koobaad ee qofka ka hor istaagi karaysa inuu hanto himiladiisa inuu hanto hankiisa. laakiin faa'iidooyinka waxaa kaloo taaban karnaa doonistii kale ee aan sheegnay ee rabitaanada marxaliga ee faraha badan leh macna intii hore ka ballaaran bay hadda kula yeelanayaan markaad himiladan sugto. oo tusaale haddaad wax akhriyi jirtay akhrisku kaa baahsanaa hadda akhrisku waa kuu soo ururaya iyo meelo u badanaya akhriskaaga xataa mawaadiic kale ama fiilal kale markaad wax ka akhriyayso meelaad si gaara usii danaynaysaa akhriskaaguna meel buu xoog badanayaa dhiirigelintii hore ka badan baad helaysaa haddii akhrisku kugu yaraa adkaan jiro kuu fududaanaya waad ku raaxaysanaysaa waayo waa xirfadihii aqoontii aad urursanaysay iyo hubkii aad isku hubeynaysay si aad ugu gaadho himilada aad sugtay. haddaad takhasus dooranaysa jaamacad sidoo kale ood master rabta inaad diyaarso sida dayaxa Afrika tobnaada ayuu kaaga dhex muuqanaya takhasusyada kale kugu suurtagalsan ee ugu dhow himiladaada ayaad markaba dooranaysaa. dadka iskama raacaysa meesha loo badayay ka ugu lacagta badan ma gelisid haddii xataa suuqiisa aanu xaami ahayn haddii xataa dadkoo dhan ay ka wada leexdaan oo kaasi yahay ka himiladaada ugu dhow adigu kaasaad galaysaa. dadku waa laga yaabaa inay ku yidhaahdaan maxaad ka doontaa halkaa laakiin aad waad ku qanacsantay waayo himiladaada si fiican baad u taqaanaa oo kuu sugantay. marka faa'iidooyin badan buu leeyahay wax badan oo nolosha kaa baahsanaaba kuu soo ururaya. isku soo duub qofku haddii aanu lahayn oo aanu garanaynin waxa gaarka nolosha doonayo tahay inuu istaago u halgamo oo ah himiladiisa nolosha waa caqabada koowaad ee u diidaysa hanka guud ee baahsan ee riyooyinka baahsan inay rumoobaan oo xaqiiqoobaan. intaan iskugu imanana muuqaalada xiga iyo qaybaha kale taxanaha la wadaag qof kastoo la jeceshahay guul waad mahadsan tahay. salaamu calaykum.